wafdi ka socda dowladda Qatar iyo wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tagay jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar si halkaasi indhayn loogu sameeyo oo looga hirgeliyay mid kamid ah mashaariicda dowladda Qatar ay la doonayso inay qayb uga qaadato dhismaha wadankan. Hadafka booqashada ayaa ahaa qiimeynta xaaladda wadooyinka si loo dhameeyo qiimeyn farsamo oo dhameystiran. Waxaa goobta ka hadlay Mudane Axmed Cali Al Nasri, madaxa qiimeynta farsamada ee dowladda Qatar. waxaana uu sheegay in halkan ay u yimaadeen qiimeyn lagu sameeyo wadooyinka si loo helo xog dhameystiran oo lagu kalsoonaan karo. هنا إن شاء الله لتدشين مشروع طريق أفغوي مقديشو أفغوي، وكذلك إن شاء الله سوف يتم تدشين مشروع طريق مقديشو جوهر بإذن الله تعالى، والتي يسعد دولة قطر أن تمول هذه المشروعين من خلال صندوق قطر للتنمية، وسوف تقوم هيئة الأشغال العامة بدولة قطر بإدارة هذه المشروعين لصالح صندوق قطر للتنمية والحكومة الصومالية إن شاء الله. waxaa kale oo isaguna goobta ka hadlay Cabdicasiis Cali Al Saada, madaxa qaybta nashqadeynta, waxaana uu sheegay in nashqadeynta ay bilaabatay maanta oo ay yimaadeen halkan isla markaana si sax ah looga howlgali doono dhismo laga sameeyo qaybo kamid ah wadooyinka ku yaala inta isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. شارع واحد من الشوارع اللي سوف يتم تطويرها اللي هو اللي يربط ما بين مقديشو وما بين جوهر. طبعا الحق الاتفاقية اللي تم توقيعها سيتم تطوير هذا الشارع بشكل كامل، ودور هيئة الأشغال العامة طبعا بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تقديم الدعم الفني اللازم لكافة الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ الشوارع هذه. wasiirka qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Qatar wafdiga ka socday isku afgarteen in la dhiso wadadan la kormeeray. taaganahay meesha ka bilaabanayay jidka isku xira Xamar iyo Jowhar. sababtaan u joogno waxa weeye sidii aan u qiimeyn lahayn mashruuca jidka dhismaha jidka Xamar iyo Jowhar isku xira. waxaan nala socda wafdi ka socda wadanka Qatar oo hogaaminayaan sanduuqa Qatar iyo shirkadda اسمها أشغال ليرة ودنك هؤلاء جود. سببت ويمادين وحوينا فيريان فالجد كان لابد جدا كويشينين لسان اسمه هذا نوع قنايو حالة جدتك نرمها مركب فيريان كبعدنا الشقدي سيان وقلت لقى الهدال إنه بلعبنسو مركا وأود جوجنا وفيرني حيالها النص بحي information كانوا بحنا ودنا وكهلا دوان هدال إنه حرب درمنا درجنا لما استركا إيو waxaa la wixii naga aadan mashaariicdan hore u heshiinay. Calaadin Muumin Goobjoog, Muqdisho.